barasaabka gobolka Salal Mudane Cabdullaahi Faarax Meedhane ayaa magaalada Looyacado ee ku taala soodinta galbeed ee Soomaaliland kaga gudoomay gaari ambulance jaaliyada gobolka Salal ee dalka Faransiiska deeqdan gaariga caafimaad ah ayaa waxa barasaabka ku wareejiyay Awka Muuse Buux oo kamid ah ururka Hodoon iyo Nimco Cali Gurey oo kamid ah jaaliyada gobolka Salal ee qaaradda Yurub goobtii gaarigan lagu kala wareegay oo ay goobjoog ka ahaayeen barasaabka gobolka Salal Cabdullaahi Faarax Meedhane xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Saylac Bashir Cilmi Waabari saraakiisha ciidanka booliska ee degmada Saylac iyo qaar kamid ah ururka Ramad ayaa waxa saxaafadda kula hadlay goobtaasi Awka Muuse Buux iyo Nimco Cali Gurey oo ka waramay deeqdan gaariga iyo sida ugu faraxsan yihiin inay barasaabka gobolka Salal ku wareejiyaan deeqdan gaariga ah Soomaaliland waan ku wareejinaa ambalaastii halkan laga soo celiyay aad maqasheen in ambalaas la soo celiyay waraaqaygi baan u soo dhameynay waan soo celinay waxaan ku wareejinaynaa kulli barasaabka gobolka Cabdullaahi Faarax Meedhane qolijeed ayuu ku magac dheeriyay ku macdaan kala garan meel doomiyaha maftaxay ee ambalaasta waxa weeyaan waan igu soo taageeray igu soo wanaagsan waad maadsantiin maanta karbaan naga dhacay baan oran karnaa mar haddii aan dhakhtarkii ambulanskii iyo qoladii dhakhtarka qaadanaysay baan isku helnay qalabkiisii oo dhan alxamdulilaahi rabbil caalamiin baan leenahay hayloobina dhakhtar kalaan soo dhagax dhignay geerisaan soo dhagax dhignay sidaaday hawsha u soconaysaa sidii ilaahay noogu fududeeyay sidoo kale waxaa isna hadal mahadnaqa goobtaasi ka soo jeediyay barasaabka gobolka Salal Mudane Cabdullaahi Faarax Meedhane waxaanu si aad ugu mahad celiyay ururka Hodoon oo gaarigan soo gaarsiiyay ambulanska ah waxaana sheegay inuu si toos ah u tagi doono halkii loogu tala galay raxiin waad maadsantiin jaaliyada maartay dibadda ururka Hodoon siiba ee maartay hawshan soo fuliyay iyo qurba joog kale arinta la maartay la maxay hawsha la qabtay dhammaantiin waan inii mahadnaqaynaa dhakhtarkii waad dhisteen bahalkii ambulanskiina waad keenteen dadkuna waa dadkiinii caafimaad iyo maartay samafal baad ka shaqaynayseen waxaanan ka xumahay celistaa waa la celiyey la yidhi aad baan uga xumahay maantana ata'khiir lahaa khayr maanta waxaan joognaa inaan bahalkii muftaaxi maanta la wareegno waanad mahadsantihiin gaarigan ambulanska ah oo loogu tala galay inuu ka howlgalo isbitaalka Ugaas Mustafa General Hospital ee magaalada Xariirad ayaa qayb lixaad ka ah deeqda caafimaad ee gobolka Salal uga imanaysa jaaliyada ku nool dalka dibadiisa waxaana la filayaa inuu wax badan ka tari doono baahiyaha gurmadka caafimaad ee ka jira meel kamid ah gobolka Salal Maxamed Cawaala Daahir Xariirad.net magaalada Looyacado